السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. soo dhawaada mar labaad waxaan ku guda jirnay qaybtii saddexaad ee koorsada hababka ilmo korinta. qaybtii saddexaad oo ku saabsanayd waalidka isticmaala awoodiisa ama authoritative style oo ku salaysan ereyga la yiraahdo ka waran. marka waxaan kusoo qaadanay tusaale cashirkii labaad oo ah sida ilmaha loola xaltamo meeshaad ka dhihi lahayd ama kan miyaad rabtaa mise kaas ka waran haddaan ma aragtay waxaan aan samaysano oo casho aan ka dhigano kala cambuulaan kusoo qaaday example-ka ka waran haddaan cambuulo guduud karino mise midaasaa jeceshahay. marka ka waranta waa inay kugu badnaataa. marka muhiimadda oo casharka iyo muhiimadda dhan oo aan u baranayno aan u qaadanayno galaasyada ilmaha waxa waaye inay caruurteena guuleystaan. waxa aan baranayno inay reflection noqdaan, ilmahena waxbarashada ku guuleystaan, nolosha inay ku guuleystaan, anagana ay noo noqdaan dad qalbiga noo dejiyo ma aragtay aakhirina insha Allah taala ay noo noqdaan dad ma arkino sabab uu noqdo in jannada meesha ugu dambayso insha Allah taala in aan ma arkino galno. waxaa jirta marka saameynta uu ilmaha ku leeyahay habkan sida ula hadlaysid muxuu saameyn ku yeelanayaa. midda koowaad waxa waaye waxbarashada uu ilmaha ku fiicnaado. waxbarashada ku fiicnaanaya sababtoo ah mid waxaa jira kasoo horjeeday habkan yaanana iloowin mar walbaba hab walbo meesha aad ku nooshahay ayay ku xiran tahay. habkan waxaa aad looga isticmaalaa waana la mahadiyey galbeedka. habka aan anaga isticmaalo badanaa waxaa laga yaabaa inuu opposite ku noqdo, laakiin waxaa jirto dariiqo aad ma arkino cilmigan markaa baratid isku bedeli kartid sidee ilmahaada aad u hanatid. sababta oo jirto waxay tahay ilmo badan ayaa hababkii markii ay isku dhaceen hababkii iyo mujtamaca loogu isticmaalay ama iskuulka iyo guriga opposite isku noqdeen. caruur badan ayaa waalidiinta laga qaatay oo is afgaran waagi ayaa soo badanayo. ilaahay subxaana wa tacaala hanoo badbaadiyo. marka waxbarashada wuxuu cunug ugu fiicnaana walwal ma haysto, cunugaasi waa degan yahay oo kama xataa hadduu qalad sameeyo ama mistake ka dhaco kama walwalaya in ciqaab daran ay ka horeyso. weli wuxuu ogyahay wax walbo uu sameeyo jacayl baa loo hayaa, taasuu ogyahay. waxaa jira kalsooni badan oo ilmaha mar walba ka muuqato يعني wax walba uu sameeynayo kalsooni uu qabaa oo yani saas buu isku taagaya cunugii. intaasna maxay ku sii muxuu ahay ugu sii fiican tahay ilmaha waxyaabo badan oo isku dayaya mistake ha sameeyo adventures u sameynaya waxyaabo badan oo sameynaya cilmiga u sii kordhayo muxuu ahay. waxaa kaloo jirta himada ama hamigiisa inuu ilmaha oo aad u muujinayo oo leeyahay waxaan baan rabaa inaan noqdo engineer, baan rabaa inaan noqdo dhakhtar, baan rabaa inaan noqdo kan, baan rabaa inaan noqdo. waxaa kaloo ku jirto arrin kale oo ayadana muhiim ah in ilmaha uu isdifaacayo markii loo baahdaba. meelahana waxa waaye bullying wax la dhahay jiro iskuulka muxuu ahay mujtamacii waa laga takooraya ilmaha. haddii gurigii maya iyo qaylo iyo muxuu ahay iyo maxaa la dhihi jiray ciqaab ay kaga horeyso cunugan mar walba waa cunug hoos fiirinayo, cuqdad walwal ka muuqdo, ma awoodi karo energy-giisa oo dhan fikirkaas gudaha ayaa qaadanay, ma awoodi karo inuu iska celiyo. laakiin markuu cunugu ogyahay in qaladka uu sameeyay caadi iyo arkino ay tahay muxuu ahay ciqaab weyn aysan ka horeynin, jacayl loo muujiyo, kalsoonidiisa ugu istifaacaya oo bullying waryaa uu leeyahay xagayga tag ha igu dhicine ya markii laguma kor socon karo. qof baa hadlay ama macallin baa hadlay gacantu taagay macallin maxaa dhacaysaan haddii uu marka macalinkaas uu ku afceliyo uu ka sii dacwoodo waalidkii maadaama kalsoon uu qabo u sheegaya ma waxaan bay sameeyay leeyahay ama waxaan uu sameeyay macalinka cunugi wuxuu noqonayaa mid hadli karo, mid ismuujin karo. maxaa ka wanaagsan wadankan wadamadan qarbigana aad ayaa loogu baahan yahay arrimahaas muxuu ahay inay ilmaheena kalsoonidaas helaan hore loo socdo. insha Allah taala casharkan waa kii ugu dambeeyay qaybta saddexaad. qaybta afraad ayaan geli doonaa oo ku saabsan habka dayacaada. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.